oo de wax hawla iyo xilu ku lahaa ma jirin waxse loo aanaynayaa dawladdii baad dhaxashay Soomaaliya hore markaa bogsiinta iyo soo dhaweynta wax ka leedahay ad ka garawdo laakiin se dambi isaga loo haystaa oo la leeyahay adaa sameeyay loomana aanayn karo anu markaas aan hoosta ka xariiqaya maxamed siyaab bisraad la dhalatay looma aanayn karo waa gef waana khalad haddaynu aanayno maxamed siyaab intii la dhalatay maxamed sheekhan eega ninka halkan cusbitaalka ka dhisay dee maxamed siyaab baruu la dhashay gef bay tahay taasi intaa laga daayo oo dadka afka loo gelin ninka adeerkii ayaana laayanu haysanaa midda kale محمد waxaan la yarkuftamay maxamed abdiye dee ninka xididna waynu nahay technically caruurtiisu hadday dalbato maanta waa reer Somaliland caruurtiisu hadday dalbato waa reer Somaliland markaynu isaga la garamayno anu ku ekaano xukuumaddiisan waxaynu ka tirsanayno xukuumaddan maanta joogto madaxda ka yahay oo nu u aragno inay ka leexatay dariiqii isu soo dhaweynta waxa jiro oo kale xukuumaddiisana maxay qaaday strategy bay qaaday la counter secession strategy in Somaliland la godoomiyo in meel walba laga soo xiro in ninkii salaamaba la maago taasina waa wada hadal la waan doonayaa falkaana waan gelayaa